la wareegayo dhammaan saldhigyada booliska ee gobolkaasi haatan qaarkood ay gacanta ay ku hayaan ciidamo military ah. warbixinta warkaasi waxa magaalada Garbaharre ee gobolka Gadeyn ugu soo diray waryaheena Umar Aydruus Ahmed. taliyaha ciidamada qaybta booliiska Soomaaliyeed ee gobolka Gadeyn Korneel Aadan Maxamed Siyaad Barre iyo mas'uuliyiin uu hogaaminayo oo maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha Baardhede ayaa waxa si diiran ugu soo dhaweeyay Baardhede mas'uuliyiinta maamulka degmada Baardhede oo hogaaminayo gudoomiyaha degmada Cabdullaahi Nuur Xasan Cadow. soo dhaweynta mas'uuliyiinta kadib waxay la hadleen saxaafadda gudoomiyaha degmada Baardhede Cabdullaahi Nuur Xasan Cadow ayaan ugu horeyn goobta ka hadlay waxaana sheegay inay ku farxsan yihiin wafdiga maanta soo gaaray Baardhede oo hogaaminayo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Gadeyn. waxaan soo gaaray taliyaha qaybta booliiska gobolka Gadeyn Aadan Maxamed Siyaad oo noogu yimid safar shaqo ayadoo la dardar gelinayo dib u qoruntii iyo dib u habeynta ciidamada booliiska gobolka Gadeyn. waxaan leenahay taliyaha waxa kale oo u baaqaynaa taliyaha booliiska ciidamada wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland iyo dhammaan cid ay khusayso arrimaha booliiska in la dardar geliyo booliiska gobolka Gadeyn sidoo ku shaqayn lahaa kaalmihiisa oo la wareegi lahaa saadogsoontiin baa aminkan waxa ku shaqaynayo qaybaha waxaan ku raadayay saldhigyada booliiska gobolka Gadeyn waxyaabaha ka shaqaynaya waxaan ciidamadii hore militariga ah oo dalka qabtay maadaama marka loo baahan yahay in la helo ciidankii booliiska ah oo la tacaamuli lahaa shacabka oo shaqadooda qabsan lahaa in la dardar geliyo la sameeyo maxaan ku raadayay ciidamada booliiska ah ee gobolka dugsigoodii la furo waxaan ka rajaynaynaa barnaamijkaas wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland iyo taliyaha booliiska in ay iska kaashadaan in haddii la yiraahdo sida ugu dhaqsaha badan ay u furaan insha Allah annagana mar walba waxaan u taaganahay inaan la shaqeyno booliiska maadaama aan maamulka degmada oo kala qayb qaadano. Korneel Aadan Maxamed Siyaad Barre taliyaha ciidamada qaybta booliiska ee gobolka Gadeyn ayaa dhankiisa ka warbixiyay ujeedka safarkiisa maanta ee Baardhede waxaana dhanka kale sheegay inay la wareegi doonaan dhammaan saldhigyada dhexe ee ciidamada booliiska ay ku leeyihiin degmooyinka gobolka oo ay haatan gacanta ku hayaan ciidamo military ah. muhiimadda safarkayga waxa weeye in aan dardar gelino isku xirno hay'adda booliiska oo matalaysa wasaaradda amniga wasaaradda arrimaha gudaha garsoorka wasaaradda gaashaandhigga arrimihii booliiska uu ka shaqayn jiray gudaha inaan dardar gelino si loo helo ciidanka militariga iyo ciidanka daraawiishta Jubbaland si ay uga howlgalaan cadowga degmooyinka kala xiranna la isugu furo. muhiimadda safarkana sidaas ku saabsanaa. ugu dambeyntiina mas'uuliyiinta maamulka degmada iyo taliyaha ayaa kormeer ku tagay saldhigga dhexe ee degmada iyagoona maray dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay saldhigga dhexe ee degmada Baardhede ee gobolka Gadeyn. iyadoona safarkan uu qayb ka yahay safarro muddooyinkii la soo dhaafay ku kala bixinayay degmooyinka Garbaharre, Luuq, Balad Xaawo iyo sidoo kale degmada Doolow ee gobolka Gadeyn. Umar Aydruus Ahmed, warbaahinta qaranka, degmada Baardhede ee gobolka Gadeyn. wali TV-ga qaranka ayaa daawanaysan